kala wareegteeda kun iyo laba boqol ee qaataan bil waliba anayna xaquuqdayda maqan dalkana anaa u dhashay anaana daafac hal sano iyo 9 biloodna xaquuqdayda maqan inay kala wareegaan xaq u leeyin ina maanta aniga wadada ii xirnaataan ana xaq u leh madaxda dawladda waxaan ka codsanaa inay barta aan joogo ay ugu yimaadin baahideedana ay warsadaan halkan waa meel aan ka fogeyn xarunta taalada daljirka Daasoon gaar ahaan wadada ka timaada isgoyska Jubba magaalada Muqdisho waxaa xiray ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya gaar ahaan ciidamo ka tirsan qaybta 7-aad ee ka howlgala gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ciidanka halkan xiray waxa ay ka cabanayaan sida ay sheegeen mushaar la'aan muddo heysata waxaana ay sheegeen in markaasi ciidankan ay ka cabanayaan mushaar la'aan muddo sanad iyo 9 bilood ah isla markaana aysan qaadan wax lacaga ciidankan ayaa xiray gabi ahaanba wadada labadeeda dhinac waxaana ay diidayaan gaadiidka iyo dadweynuhu in markaasi ay isticmaalaan wadooyinkan qaar ka mid ah ciidamada iyo saraakiishooda halkan xiray ayaa u waramay telefishinka dalsan iyagoo ka hadlaya bal waxyaabaha cabashadoodu ay ku saleysan tahay xilligan xoogda Soomaaliya ka tirsan qaybta 27 muddo sanad iyo 8 bilood ah iga maqan difaaca xalanka soo xarooday xuquuqdii maqnaaday xuquuqdii doonayay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalka ugu sareeyay xuquuqdii aan lahayno dalka aan ku leenahay siyaano casuurta shacabka waa laga qaadaa waxa ka soo baxay aga jawhar iyo balcad intuu dhaxayso aan ka socdaa sanad iyo 8 bilood ma jarlaanahay difaacana aan joogay madaxdii iyo xukuumadana warka sugayay anigoo warka sugaa baarlamaanka waxa ka maqlay askartii xuquuqdii wada siinay askari xuquuq la'aan ma jiro anagana kamid ah xuquuq la'aan difaacana joogay madaxweynaha ayaa baarlamaanka ku furay anaga aan xuquuq la'aan intaan xuquuq la'aan waayay ciidankan aan arkaysiin waa qaybta 7-aad guutada 22-aad waa qaybtii oo dhameystiran waayay waa guuto maahan waa inta xuquuq la'aantaada oo qaybta ka tirsanay waxayna ka yimideen difaaciyada buulay qaar ka yimiday qaar waxay ka yimideen Jowhar iyo Balcad intuu dhaxlay mana kala socno isku ciidankii waa isku qaybta sanad iyo 9 bilood aan xaquuqdooda ka maqan tahay sida akoon loo sameeyay askari ay akoonkiisu ay lacag ay ku soo dhacday kamid ma akoomankooda ilaa sidii loo furay ilaa haatan wax lacag oo ku soo dhaca ma jiraan ciidankaani waa ciidan 2 sano xuquuqlaanahay 9 bilood xuquuqlaanahay xataa daily food ay ku noolay laga goostay waxaa jiro koox ka xun musiibooyinka imaanay sidii fatahaadda webiga Shabeelle ama ay sanadkii hore yimid ama coronavirus-ka xuquuqda maamulka ciidanka loo dhiibay waxay qabaan 19 askari waxay ku geeriyoodeen ayagoo geeda caleemaysanaayo saas daraadeed in aan shacabka iyo saaxiibada kale oo ciidamada aan la wadaagno ayaan halkaan u imaanay ma qarsan cidna ma dhibaatay hayno warkeenu waa intaas in shucuurteena dadku ay nala wadaagaan shacabka Soomaaliyeed iyo saaxiibada kale oo ciidamada ah deegaankeenu wuxuu ka dhaxeeyaa Martabaan meesha laho ilaa Muqdisho ka dhaxaysa waa qaybta 7-aad waa 4 guuto ka kooban tahay talskeed intaas oo ciidanku ka kooban yahay wali way soo socdaan dawladdu anaga madaxda xukuumadda waa la xiriirnay ilaa 19 bilood wixii laga waayay hadeer ka bacdi kama suugayno ama waa inay la ruqsayso dawladdu ama aan u shaqeyno hadda diyaarna inaan shaqeyno madaxda alla kulantan maxay idin sheegeen waa adiga waxba lagu maqan cid kasta inay tiraahdo annaga xataa saxaafadda aan baari karto wax aan ciidan ahayn ama aan bayroolka ayaga wax marsiinayn aan marin waa dambiile annaga ogol inaan maxkamad geeyno waxaa bishii 10aad 2018 ayuu maray ciidankan dhamaantiis tirakoobka ilaa hadda xilligan waa xuquuq la'aan waxa arintaas kalifa ma naqaan anaga madaxweynaha lama kulmin lama xiriirin laakiin madaxdan lagu xukunto anaga shaqada aan la xiriirin maxamed cabdi xasan iidle raadiyaha telefishinka dalsan Muqdisho